بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مركب كوبات ألبوم هنسين سعادة بن مسلومي مدشم. طبعا أنا قف قرآن هاي كم وده هذا كرمك على اليرادة. ولسه وحيابه والتحامن دونا واليرادة كبر عشان يهدي له إلهه. أنا بحسوس تقول لا بريء أنت شفني عاو مدشم. وراك عبد الرحمن سؤال شو سؤالك بين ويدي وحكى لها أدي بحكي مرتا مين في بالتدمير مبوي بالتدمير بجهود بالتدمير مبوفر بالتدمير با سومالي كلمات بالتدمير مرتا هذه سؤال شامل درسنا يقول لك يعني وحي هاي شن تبا مكوى التدمير شن تبا مكوى التدمير سبب تاسع أولا يوحوي أنتوا جميستوه نوعاً حد ما ينام كلا لهين وحقيقة وحكلو حقيقة حدي ونا جميستوه نحدين ما أنت صوت أفريقيا نقال لهم حد كرنا إسحاق مركو إنجليزكو فديستي مركو إنجليزكو فديستي كينيا Soomaalidu waxay ku jirtay dhowr boqol sano oo ay u xiyaamayso koonfurta Afrika ay u xiyaamayso waqooyi way ka xiyaamayso marka sida u socday markii aanu naga yaabay xawligii aan ku socday ayuu naxadeeyay yiri halka ma dhaafi kartaan sharuuc uu ka soo saaray marka gumaystiistaas dalkeena u soo koobay isla markaasna na kala qoqobay wixii uu nagu kala qoqobayna maanta u istaagnaano maaha oo naaminsanaano waxa ka imid jigaan waxa ka mid halka inta waan ka nimid anu waxa ku dhashay xabad dadka iyagu waxay ka yimaadeen waqooyi waa isku kaymid labadaba iyo inta ka badan waan wada leenahay insha Allah maalin aan maanta ahayna way kulmaysaa calankaas ayayna wada yeelanaysaa sidayda waxaan ahay suugaan ururiye waxaan ururiyaa gabayada quraanqurada jiiftooyinka wixii Soomaalidu tiriso marka maanta waxaan jeclahay inaan dhowr tudcood oo aan soo koobaya inaan dhowr abwaan ka soo kala qaato si aan si dhamaystiran u xusto kooda duliya sababtoo ah Soomaali haddaan nahay waxaan caan ku nahay gabayada maansooyin marka ilaahay waxaan ku mahadinayaa dumarkii noo quraanquray sababtoo ah waxay wadnahayga gelgeleen idinkana way gelgeleen oday cabdilcasiis oo dabcan soo qaatay meerisyo fara badan aad buu ugu mahadsan yahay marka haddaan Soomaalinahay waxaan ku soocannahay gabayada iyo maansooyinka halkaas ayaa sumadeedii oo lagula yaqaana iyadana taariikhdeedna noo koobtay dad wax qorta ma aynan ahayn dad hadlaan ahayn sugaanteeduna waxay ahayd sugaan afeed marka anuu dhalinyarada insha Allah ku soo noqon doonaan ugu dambeynta xornimadii waa la doonay dad fara badan baa u dhintay marka wadada la marayay dad fara badan baa maansooyin ka tiriyay marka haddaan Xaliimo Shabeel oo ka mid ahay dadka quraanqur ay tirisay 3 meelis ka soo qaato waxay jireen go'aan baan gaadhay isticmaalka inaan gudnaa waxaan iyo ciid nin qabayaa wax geysan jiray shartu naga guuro gaashaan ka wadahay Xaliimo Shabeel ilaahay u naxariisto in badan baan maanta ka sheekeynay SYL afhayeen bay lahayd gabyaa bay lahayd Soomaali badan baa gabayo wahay laakiin ninka ugu caansan ee la yaqaano wuxuu ahaa Cali Xuseen Darsi Allahu naxariisto gabayo fara badan oo ku taageerayo hadafkeedu taagnaayeen ayuu tiriyay midnimada Soomaaliyeed uu ku xoojinayo ayuu tiriyay marka isaguna sidii oo kale dib uu ka tilmaamayaa wadadii loo soo maray sidii gumaystaan iskaga dhiciyay ugu horeyn waxa ku bilaabay gumaystaan oo la qobaytaa iyo bina markay calanka noo doonayeen danabadii dhaaftay dandaansigii maalintii la istuqaynayay hal olaakadii lagu dalbaday daalinkan erinay dhiigaanyadii weerarka xida moodaysay maydkii la daajiyo kufriga dooxata dulaysay ninkii doobta la daadin jiray dhaqankii loo geystay
doobta waxa waaye awrka doobinaya awrka markuu booqayo doobinaya markaa wuxuu tilmaamayaa gumaystuun oo booqay kibray inuu dadka qabsado uu ku tashaday dekanooyinkii laga gutiyo dababkii duugowday dunidaa ogeyd waxaa ku dhacay daalinkii shalaye goortuu debkiisa u cabsaday dacarna loo qooshay dirqi buu ku dhiibiyey xumaan dowladnimadii nacam samaanida gudhig buu ku diiday marka waxay ahaatay in lala dagaalamo duhur buu ka tegay aqalladii uu dekayn jiray derbi adag docdaa waxaa ka yaabdanina kaa hayso duur wada socda waa ridaan waana dumiyaane dad israacsan baa maalintii dilay waraabiy cali xuseen xirsi markuu gumaystaha ku sifaynayo waraabaha keligii ma ahayn rag fara badan buu ku sifeeyey marar fara badan uu isaga ku sifeeyey way jirto lagu ayini sababtoo ah qarannimadii iyo midnimadii soomaaliyeed waxaa ku sifeeyey hal ay tahay in waraabaha laga dhiciyo waad maqasheen saarkii canka ahay carays ciise maalintuu lahaa waraabow maalin wacan aan kala weydaaranay waraabow maalin wacan haye maxaa dhacay markii calanka la helay haddaba markii calanka la helay weli waxaa muuqatay inuu gumaystuu dibindaabyo iyo dadkii uu kala xidhay maadaamay qaar u shaqaynayeen qaar kalena aynan u shaqaynayn dadkii buu isku diray oo dad ku dhex dhigay sidaas daraaddeed dibindaabyo ayuu ku kacay marka dibindaabyada si looga digtanaana xaawo jibriil oo quraanbarkiisa waxay jireen weli ma ayan kuusan nimankiina qaybsan jiray qamuuniyo ciil rag baa maanta qadadhadhamin ee wataas quruxdiyay soomaaliya ee qabsada quruxda wajada waa calan yes markaan isdalayno cadowgeenu waa qoslaa ee qalowqalowgaasu qalbigiina yayan gelin ee wataas quruxdiyay soomaaliya ee qabsada dadkan qaar nahay waa la kuursadaa hadba waxaa loo qisaasaa dembi ayan qabin ee wataas quruxdiyay soomaaliya ee qabsada qaayaheeda yaa xornimo dhiigu ugu gubtaa ee cadaawuhu noomu umuulinay xaqa wadeen ee wataas quruxdiyay soomaaliya ee qabsada sidii xaalka ka maqlaynay qur-aanku aad wuxuu leeyahay maado dhiigga kicisa waxaan xasuustaa markay dumarku qur-aanqurayaan jaangweyne ku jaangweyn jireen ee dhihi jireen dhiiggaa ikacay dhiiggaa ikacay marka qur-aankaas erayadaas ku dhisa quruxda badan in dhiigga dhaqaajo waayo xasuustaas lama ilaawaanka anagoo haysanaa ayaan maanta u dabaaldagaynaa kowda luuli waana maxaad ilaahay waqtigu waa kooban yahay haddii aan soo koobo dhalinyarada wax kale oo haysta ma jirto waxaa haysta un inay bartaan taariikhdaas cid kale ay ka baranayaana ma jirto waa waalidiintood ka waaweyn inay ku xidhmaan waayo oday cabdilcasiis wuxuu noo sheegay inay jiro generation gap maxaan dhalinyaradii iyo waayeelkii oo kala tegay intaan isku soo dhaweeyo waxaa keenaysa in si maskaxi ku jirto inay dadku wada hadlaan inay dhalinyaradu ku xidhmaan waalidiintooda taariikhdana ka furaan iyagaa taariikhda laga furaan insha allah waxaan kusoo gabagabeynayaa gabay gudbiyey allah naxariistay xaaji aadan afdalooco ahaa kuwa weyn oo soomaalida aad u taqaano dhalinyaraduna ku gubaabinayaa markaa dhalinyaradu leeyahay xaqiiqooyinka kushayaa nolosha markaa dhalinyaro inaad si fiican u dhegaysataan waa muhiim anigu laftayda waan dhegaysanaya bilahi hadduu geed aynago xaabadaa laga idlaystaaye mid yar oo iniisis ah baa soo awaalbaxae isagaa anfaaciga hadhkiyo ooda kaafiye dadka odayga goortu ka baxo iyo islaantiisu ubadkooda hadhabaa maxuu aayatiin helae markii aadam iyo xawa iyo kaynta la abuuray sidaasay arwaax iyo dirtuba ku isiraayeen ummaddaa shabaabkeedu haran bow ayaan xuma inamiyo hablaba waxaad tihiin aadankii kacaye itaalgabe dadkiinnii horo weydin aragtaane idinkaa ammaanada xilkii eegan qaabilaye israafkiyo fadhigaba waxaad ku ambaraysaane axmaqnimo waqtiga kaaga tegay oohin kugu reebiyey ayaantii ku dhaaftana waa waxaan la eegayne iskiin wax u qabsada noloshu waa udubdhexaadkii insha allah waxaan kusoo gabagabeynayaa maadaama qabyaalad ka wada hadalnay in badan oon durnay cambaareeyihii ugu weynaa qabyaalada cambaareyn jira wuxuu ahaa cabdillahi subxaana watacaala
marka nabarkii ugu weynaa ugu dhuftay haddaan isxasuusino oon ku dhaqanno wax kale maaha ilaahi subxaana watacaala horta aayadiisana ku dhaqan waaye in qabiilka iyo wixii isku garto kadibna qabyaalada inaan nacno waaye saan ku nicinana macadin wuxuu ka yidhi sida dugsi male qabyaaladii waxay dumiso mooyaane waad salaamantihiin